ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله على هدي الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثير ما بعد السلام عليكم ورحمة الله حجركنا دينك عقصاب سيئين النساء اللاتي يحرم النكاحهن نغو غوركا كسو جيرني احكامتي غوركا اي waxaan xajirkeena inuu ku saabsanaanaya dumarka qaybaha shariicada islaamku inaga xaraam yeeshay guurkoodu aan u banaanayn ee shariicada islaamku inaga xarimtay guurkooda buu lama shar'a al-islam az-zawaj wa hasa alayhi harama 'ala al-insani nikahu ba'd an-nisa islaamku isagoo inagu baraarujiyay guurka iyo qiimihiisa balaaran isagoo islaamka aad inoogu boorinaya ayaa haddana waxaa inagu baraarujiyey qaybo ka mid ah dumarka iyo gabdhaha islaamka ah aan guurkooda ku banaanayn in aad guursato buu wa aqsaamu al-hurmatu fi nikah ala qismayn ila laba qaybood baa lagu soo ururiyaa qayb abid iyagu xaaraamnimadooda ay daa'im tahay iyo qayb muwaqata waqti iyaguna ku xadaysan buu qaybta daa'imka ah waxaa loo sii qaybiyaa ilaa 3 qaybood ilaa 3 aqsaam qaybta daa'imka ah ee guurkoodu xaraam iyo abid 3 bay u sii qaybsamaan qayb qaraabanimo ku xaraam tahay qaybna nuugmada ridaac inaad naas wada nuugteen qaybna musaahara gacalnimo oo sodohdii iyo sodogii dadkii aad gacalowdeen ayaa labada iyaduna sidii waalidka oo kale iyaguna noqonaya oo qaybahaas 3 la u sii kala qaybaa waxa weeyaan daa'im abid ahaan daa'im oo xaraam abid ah oo marna ku banaanayn buu qaraabadii kuma banaanaanayso kuwii nuugmada kuma banaanaanayso kuwii labada waalidnimada ee gacalnimada ahayd sida sodohdii iyo sodogiina wixii xaqooda ka yimidna iyagoo xaaraanimadoodu daa'im bay noqonaysaa buu ilaahay wuxuu nagu baraarujiyey taa qaraabanimada inay xaaraam tahay daa'im tahayna aayadaha kariimka ayaa ka mid qaala tacaala حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية بول إلهي بقى لو حليت كحرام يلي هو يويكي وايد كحرام قبلين وايد كحرام هبلي وضلالتين ادولا هيد وايد كحرام الدوينكي أبين لدش وايد كحرام خبر يريه لدش هو يويكي وايد كحرام لماذا قبلين ولا لها ولا شاء ubadka dhashada ama abtiga wahayd ama walaalkaan leeyahay adeerka waa ka xaraam bul taasina ku galayna dabeedo qaybaha wal muharramat bin nasab al qaraba kuwa qaraabnimada xaraam ku ah ilaa 7 qaybood loo si kala qaada sida aayada kariimka tilmaantay hooyooyinkii baa kow ka iyo gabdhihii inantii aad waalidka wahayd ee aabahayd waa ka xaraan waa labada oo banaatul ibnu inantii oo inankaagu si dhalay awowgayd waa ka xaraam walaasha ad wada dhalateen waa ka xaraam ama xagga aab ama xagga hooyo waa ka xaraam guurkeedu waa ka xaraam walaasha wixii ay dhashay ee labada abtiga wahaydna waa ka xaraam iyaduna walaalka duubadkii u dhalay ee adeerka wahaydna iyaduna waa ka xaraan inantii adeerka wahayd inantii abtiga wahayd ciddada labada wal amatu hiya akhtu al-ab ciddadaadii la dhalatay aabahana guurkeedu waa ka xaraam habaryartiina iyaduna waa hooyo oo kale ee hooyada la dhalatina waa ka xaraam buu 7 qaybood waxay xaraam ku yihiin qaraabanimo buu ilaahna aayada kariimka nagu cadeeyay ee wax kale iyaduna 4 qayboodna waxay ku xaraam noqonayaan musaahara labada gacalnimadii iyo sodohnimadii ama sodogii buu zawjatul ab aabaha zawjadiisa waa ka xaraam oo labada muxuu ahaa zawjatul ab iyo labada iyo wixii muxuu ahaa soo xiriirsanaa buu zawjatul ibn walabada inankaaga inantii aad sodooda oo sodogo ahaydna inankaagu tii u qabaynayaduna waa ka xaraam waalid baad u tahay qaala tacaala walaa tankixuu maa nakaxa aaba'akum ilaahay baad ha guursanina kuwii aabbayaashaan guursadeen ee labada muxuu ahaa minyaradii iyo kuwii aabbaha ay kulmeen iyaguna waa hooyada oo kale baa lagu leeyahay waa ka xaraam ilaa maa qad salaf wixii jaahilgii isagu ku dhacay mooyaane waana shay faaxisho ah inuu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa'a sabiila bul waa shay xun iyo caro alla ayaa ka dhalata waana wado xun baa la yidhi in jidkaa la jiraysa bul waxaa kaloo labada muxuu noqonaysaa iyaduna musaaharnimadan soo gelaysaa ummu zawja sodohdii
xaaska aad qabto hooyadeed waa kaa xaaraam oo falaa yajuusu nikaaxa iyaduna waa juuskeedu waa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiina hooyooyinkooda iyaduna waa kaa xaaraam bintu zawjati labada gabadhii ay wadatay xaaskaagu markaad iyada aad wada jirtaan rabi baa la yidhahdaa gabadhii ay korsatay ee xaaskaagu kuula timi iyaduna waa kaa xaaraan koladii hooyadeed la dukuulay waxa weeyaan waxay noqonaysaa iyaduna waa inantaadii oo kale kama qaala tacaala warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihina kuwii hooyooyinkood aad la guri gasheen iyaguna waa idinka xaaraan buu ilahay casuus haddaanad hooyadeed la guri gelin aanad hooyadeed aanad aroosin iyadoo way ku banaanaanaysaa maadaama aanad hooyadeed qabin buuri waxaase shareecadu tilmaamaysaa kol hadad hooyadeed aad qabto inantii waa kaa xaaraam oo waa inantaadii oo kale noqonaysa buuri waxaa kaloo iyaduna xaaraam noqonaysa 7 qaybood oo kale oo xaggii nuugmada noqonaysa walmuxaramaatu biridaac nuugmada xaggeeda iyaguna 7 ku xaaraam noqda oy kow ka tahay tii idin wada nuujisay hooyadii oo kale al-ummu biridaac tii idin nuujisay waa hooyada oo kale ee naaska wada jaqdeen waxa weeye waalidkii idin nuujiyey waa hooyada oo kale hooyay ku tahay waxaa kaloo iyaduna ka xaaraam noqonaysa walaashii aad wada nuugteen inantii aad naaska wada jaqdeen waa walaasha al-ukhtu biridaac sida aayadda kariimka tilmaamayso qaala tacaala wa ummuhaatu allaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aridaaca kuwii idin nuujiyey iyo kuwaad wada nuugteenba intaba iyaduna waa ka xaaraam waa iyaduna waa hooye ku noqonaysaa tii idin nuujisay tii aad wada nuugteenna waa walaasha oo kale buuri waxaa kaloo ka xaaraam noqonaysa bintul akh min aridaaca buuri labada inantii uu dhalay walaalkaagii aad wada nuugteen inantaada u ahayd adeerkaad u noqonaysaa kuladaad wada nuugteen ood inantii uu dhalay inankii aad wada nuugteen inantuu dhalayna waa adeer baad u noqonaysaa waa ka xaaraam sidii qaraabadii oo kale bintul ukhti walaashii aad wada nuugteen inantay dhashayna iyadana abtibaad u noqotay iyaduna waa ka xaaraam camatu min aridaac tii aad wada nuugteen ayd nuujisay weye alatii ridacat maca abiika tii aabbaha ay wada jaqeen naaska wada jaqeenna ciddadiina iyaduna waa ka xaaraam oo waa ciddadii aabbaha la dhalato oo kale alkhaalatu min aridaac iyaduna tii idin nuujisay tii ku nuujisay tii la dhalatayna waa habaryartiina iyaduna waa ka xaaraan oo iyaduna waa hooyadii oo kale koladii walaasheed ku jaqsiisay iyadiina waxay ku noqotay habaryar oo waxay noqonaysaa sidii ay habaryarta kaaga xaaraam ahayd oo kale ay noqonaysaa albintu iyaduna waa gabadhii ay gabadhaadu nuujisay alatii ardacat min zawjatika fatakuuna anta kalab gabadhii ay nuujisay xaaskaagu ay jaqsiisayna iyaduna waa inantaadii oo kale inantii ay gabadhaadu haysatay ee labada ay naaska nuujisayna iyaduna waa ka xaaraam waa inantaadii oo kale buuri kuwa qaybta labada waqtiga ku kooban walxurmatu min almuwaqata qaybta xaaraannimadooda ay waqti ku go-an tahay waa kulminta la kulminayo aljamcu bayna alukhtayn laba habloodoo walaala ah lama kulmin karo haddaad mid qabto midda kale uma keeni kartid ilaa ay ama kaa dhimato ama aatan aad furtay oo dalaaqday oo aad kala baxdaan buuri walmar'atu wakhaalatiha inan iyo habaryarteedna lama kulmin karo oo rasuulka ilaahay bay noo diiday qaala tacaala wa an tajmacuu bayna alukhtayn ilaa maa qad salaf ina allaha kaana kafuura raxiima ilaahay baa le caza wajalla waa weeyaan inaad kulmisaan laba walaalo ah ilaahay waa xaaraam yeelay waqtigii jaahiligii hore mooyaane ilaahna waa kii dembi dhaaf badan ee naxariista buuri rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam isagoo inooga digaya dadka ehelka in la kulmiyo oo ay ka dhalanayso qaraabadii oo xumaata cadaawad beeranta laba habloodoo wada dhashay laba inantii edadeed ama inantii habaryarteeda oo la wada qabo intuba shareecada islaamku xaaraan bay ka dhigtay rasuulkuna wuxuu lahaa sala allahu aleyh wasalam xadiis saxiixa ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala laa tikxu lmar'atu calaa camatiha lama guursado inanta iyo edadeed lama kulmiyo ama inan iyo habaryarteed lama kulmiyo lahaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxaana ka dhalanaysaa qadiicatu rixm waxaa qaraabanimadii oo gooda iyo cadaawad beerantaa ka dhalanaysa marka guurka oo islaamku boorinayo oo nagu dhiirinayo in la guursado oo runtii aan noloshii bini aadamka islaamkuna adkeeyey ayaa haddana waxaa lainooga digayaa qaybaha ay shareecadu inaga xaaraam yeeshay in laga dheeraado ayaa layna amray oo loo fahmo in ilaahay caza wajalla wixii uu kuu diiday ama wuxuu ilahay naga xaaraam yeelay ay maslaxa inoogu jirto oo ay tahay in laga fogaado sidaa ilaahay u xarimay baana xaqiiqadu ay tahay runtii in laga dheeraado wixii ilaahay kuu baneeyeyna lagu dirmo wixii ilaahay naga xaaraam yeelay in laga fogaado ilahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu inamariyo jidka mustaqiimka ah guurkuna sideetaba waxaa la amray in la ilaaliyo akhlaaqiyaadkiisa iyo labada asluubta wanaagsan ee guurka loo jideeyey ooy u weyn tahay macaasharo wanaagsan wada dhaqan wanaagsan
ninku waa inuu hadii jalaala dhaqan fiican ooriisa si fiican ula dhaqmaa ooriisa ilaahay u xalaaleeyey iyo intii ay wada jireen hadduu mid qabo hadduu laba qabo hadduu saddex qabo hadduu afar qabo ninba intii ilaahay karsiiyey awood alla u siiyey iyo deeqdooda iyo daryeelkooda intii ilaahay karsiiyey ayaa la rabaa in muxuuha macaamilada ilaaliyo ilahayna waxaan ka rajaynayna in naga yeelo kuwa labada ku dirma jidka mustaqiimka allah ina mariyo kuwa muxuuha dumarkooda kuwa daryeela allah naga yeelo kuwa awlaada daryeela allah naga yeelo raxmaadkiisa allah inoo soo dedejiyo abana allah inaga dulqaado wabilaahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك